iyadoo looga reebay waxyaabaha qaar si ay ugu habboonaato jilidda. haddana kadib markii la soo baadhay ee la xaqiijiyey qisadan dhabta ah, waxaa loo soo bandhigay sidii ay u dhacday. nolosha sida safarka oo kale waxay leedahay hakadyo. marmar waxaa naga lumo toobiyaha, mararka qaarna waxaana xayira jidgooyo. oo kolkolna waxaa dhaca waxyaabo wanaagsan oonan filanaynin. sidaas oo kale sheekadanu waa safar, waana safarkii noloshayda. magacaygu waa Diini Wadiyaaninta. anigu ma ihi qof jilaa ah, waxaanse ahay Diini tii runta ahayd ee qisadanu ay ku dhacday. haddaba ha inoo bilowdo safarku. waxaan ku jiray safar la xiriira shaqadayda. waxaan saarnaa tareen ka tega Jakarta oo u socdo Yogyakarta, kaas oo si lama filaan ah u istaagay. mudane iga raalli ahow, halkan maxaan u joogsannay? baayo warkama hayo, waxaa laga yaabaa in cilad ay jirto. waa hagaagay, goormaa laga yaabaa inaad ogaato? baayo waxaan soo weydiinayaa ninka injineerka ah. mudane waad soo noqotay soo maahan? miyaan u dulqaadan karnaa sidan? dabcan maantoo dhan halkan baan ku xayirnaan doonnaa. waxaan hubaa inuu qabuujiyaha inaga dami doono mar dhow, naqaska inagu dhegi doono. wuuba bilaabay kuleelkii. maxaad aragtaa? ma doonayaan inay meeshaan naga kaxeeyaan soo maaha? ma malayn kartaa? maxaan maleeyaa? waxaan ku koray halkan meelahan. runtii, oo waa taqaanaa meesha aan joogno? Gombo? oo walaashayna waxaan ku kulmaynaa Yogyakarta. goormaynu gaari doonnaa? aniga xagguu aada kii hagay? reerta Jakurniawaan. Marwata Jakurniawaan. Marwata Jakurniawaan waa aniga. Kurniawaan wadnaha laga qabtay.
wadna xanuun ah sidee ku dhici kartaa natiijada shaybaarku waxay sheegaysaa markii la keenay inuu shuban iyo mantag ma aanan fahmin sida wax u markii dhaceen cadaadiska dhiigga eegnay aabbahay wuu caafimaad qabay kadibna waxaa ku dhacay shuban iyo mantag markii isbitaalka la geeyey dhowr saacadood kadib waxaa ku dhacay wadna xanuun oo wuu dhintay sidaas fudud ayuu u dhintay waxaana dareemay sidii anigoo hilaac igu dhacay waan isku daynay inaan caawino mudane Cornwall laakiin wuu dhintay sidee ku dhici kartaa ma dhici karto taji wuu dhintay ma dhici karto cunugayga siduu noqon doonaa waan ka xumahay walaashay aniguba waa idinla murugaysanahay midaan ma qaadan karo way hagaagisan daari way hagaagisan maxaa sameeyaa way hagaagisan daari way hagaagisan waxaan rabaa inaan arrin idin sheego aabbahay wuxuu xidhiir qarsooni ah la lahaa habaryartay sundaari hooyadii walaasheed markuu aabbahay dhintay waxay lahayd uur 8 bilood ah laakiin intaas kaliya may ahayn hooyadayna markaas uur bay lahayd ma aanan garanaynin waxaan sameeyo iyo meel aan u ciirsado weligay waxaan aabbahay u arkayay haliyey hadda waxaan dareemay inaan ku sirmay waxaana ka walbahaarsanaa siday noloshannadu noqon doonto مدنيالي مروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ahaa 12 jir waxaana ugu weynaa 5 caruur ah haddana hooyaday waxay lahayd uur kale hooyaday ma ahayn qof shaqaysa sidee baan u noolaanaynaa waxaa halkan isugu nimid waa geerida walaalkii Tejo intuu noolaa hadduu wax qaladaad idinku sameeyey waxaan rajaynayaa inaad cafisaan wixii qaladaad ah oo sameeyey anaa mas-uulka ah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waxaan filayaa in habaryartay sundaari ay noogu murugo badneed inkastoo markaas aanan sidaas u garanaynin waxay dareemaysay sharaf daro maadaama ay xidhiir la lahayd aabbahay oo ay uur yeelatay sidaa darteed waxay ka tagtay goomboong iyada oo meel ay u kacdo aan aqoon Lundaari waxaan sii talo dabadeedna maxaa dhacay waxaan u sheegay inuu xalkeedu yahay in iska soo rido ilmaha waa inaan si macquul ah u fikirno ma garatay taas ka gudubo miyaad maqashay maxaan maqlay ma og tahay Tejo wuxuu lahaa saaxiib labaad mid dharka ku tasho bandung xageed waxaa ka soo maqashay antin sanjaya ina adeerteed midii shalay timid taas ina adeerteed waa midee waa miduu qabo tagsiiluhu digaaga iyo diiqyada dagaalama lacag fiican baa ka soo baxaysa wuxuu haystay lacag fara badan oo kale uusan ku jirin stuudiyaha sawirku ma aanan ogeyn in walaalka Tejo uu ahaa nin heer sare ka gaadhay sawiridda walaalkii wuxuu lahaa xirfado badan runtii xirfado badan dumarka yaa noqonin Tejo Cornwall meel kastaba naagtu doono uu heli karay
ها waan arki doonaa siduu reerka noqdo waxaa ugu murugo badan arrinta Sundari ma garanayo waxay samayn doonto Sundari waan ogahay mar aan fogeyn albaabkaagay soo garaaci doontaa iyadoo baryotami yaa kolay kaalmo weydiisan aniga miyay ii iman u malayn maayo waan kugu raacsanahay waa imaan gurigayga ma xuma laakiin haddii ay iridda kula kulanta xaaskayga waxaan samayn karo ma jiro dadkii aan islahayn way idiin gargaari doonaan ayaa u hadlayay si cadaawad ah oo qalbiga dhaawacaysa markaa ma aanan garanaynin waxaan sameeyo waxaan dareemay in Eebbe keliya noo gargaari karo waqtigaas adigu caruur baad ahayd haa meeshaas mar dambe kuma aanan noqonin markii dambe markaan helnay xaqii aabbahay waxaan u guurnay Simraan si aan masruuf ooga helno hooyaday waxay guriga dhinaciisa ka furatay dukaan yar laakiin dhaqaale xumo way jirtay mar walba waxaana dhacday hooyaday 2 gabdhood iyo wiil walaalahay ah inay dad siiso waxaan kale oo maqlay in xaaladda habaryartay Sundari ay aad u xumaatay markay wiilkeeda dhashay waxay u guurtay Sukoharjo si oo la noolaato ayeeday waxaana dhaafay 2 sano waxayna ahaayeen sanado noloshu noogu adkay hooy maya war naga taga ha caayini wiilkayga na dhaafa idinka dhan taga naayaada maxaad la aamusan tihiin kuwanu miyaynay carruurtiin ahayn oo ma sidaanaad carruurtiina ku barbaariseen carruurtiina yar baa wecelo ahay wiilkayga ma aha nayaa hooy ma og tahay ciddiina kuma odhan sharkaaga magaaladan keen managaad noo sheegaysaa sidaan ciyaalkeena u barbaarsan lahayn oo yaa ku baran ninkaad la kulantaba inaad la seexato yaa annagu sidaadoo kale ma nihin waan sugnaa ilaa aan ka guursanno ilmana ma dhalnin dabcan maba taqaanid wiilkaaga aabbihii xitaa ma taqaanid wiilkaaga aabbihii oo ma taqaanid oo yaa ku barayo taa naga tag markii ay ka soo tageen Sukoharjo meel kale ay aadaan maadaama aysan haysan habaryar Sundari iyo Bambang waxay yimaadeen Simraan hooyaday way u qalbi jilicsanaatay calaacalkii Sundari anigoon raali ka ahayna waxay ogolaatay inay nala joogaan waqtigaas waxaan u arkayay in dhibaato nagu filaanu ayna haysato mid kalena aanan u baahnayn dharka xariga ma ka soo guri kartaa naga tag halkan maxaa ka samayni naga tag baan ku yidhi ma og tahay aan ku necbahay baaldiga buuxi haddana dhib ma leh ha ka walwalin waxay ilaalinaysa diini
الحسوس قركا يا كوف الصحين أخذ قفك الحسوس قركي إسي markaan arkay habaryar Sondaari oo akhrinaysa xusuus qorkayga waan is xajin waayay inkastoo ay dhici karto waxyaabo cadaawad ah oo ku saabsan iyada iyo bonbon inaan qoray haddana run bay ahaayeen kolley aniga waxay ila ahaayeen wax run ah waxaana hooyaday u sheegay inay kala doorato aniga iyo ayaga waxay ahayd inaan ku farxo habaryar Sondaari iyo bonbonka oo ku noqonayso kaharjo waana ku faraxsanaa laakiin caradii aan labadooda u qabay waxay keentay inaan u caroodo hooyaday waxaan ogaaday inay qorshaysatay inay nin kale guursato go'aankaas oo qoyska intiisa kale aysan kala hadlin waxaan bilaabay inaan isweydiiyo mar haddaanan cafiyi karin hooyaday janno ma geli doono sidaa darteed maxay faa'iido leedahay inaan maalintii 5 jeer tukado ama inaanan dugsiga wax sirin inaan dambi iska dhowro maxaan ka faa'iidayaa waxaasoo dhan wuu iga sii caraysiiyey ilaa ugu dambaystii aan go'aan ku gaaro in aanan diin danaynin waxaan ka tegay xurmadii iyo xishoodkii waxaan rabay oo keliya inaan xor noqdo waxaan rabay inaan sameeyo wixii aan doonaba waxaana go'aansaday inaysan wax i celiyaa jirin xataa diintu waxaan bilaabay inaan xeerarka oo idil jabiyo wuxuu ahaa sanadkeygii koowaad ee dugsiga sare wax kasta oon rabay waan sameeyay laakiin markaa kadib waxaan arkay waxyaalo argagax leh waxaa ka mid ahaa markaan arkay gabar asxaabtayda ka mid ah oo intuu ka soo daatay ilmihii uurkeeda ku jiray sawirka ku rarafanaysa dhiigna uu ka socdo iyo mid kale oo isna asxaabtayda ka mid ahaa oo tuugo intii lagu qabtay xabsiga loo wado waxaana bilaabay inaan isweydiiyo ma dhabbaa inaan noloshaasoo kale rabo nolol ku hoos jirta xukunka diintu ima aysan farax gelinin haddana nolol ka madax bannaan xukunka diintu ma ahayn iyana mid aan rabin markii la gaaray bisha Ramadaan waxaan is arkay anigoo diinteydii dib ugu laabtay waxaan bilaabay inaan kutubta diiniga ah akhriyo oo aan tukado si khushuuc leh ayaan u akhriyi jiray quraanka oo waxaan doonayay inaan Alle u dhowaado runtii waxaan rabay inaan nabad helo waxaan isu diyaariyay salaada tahajjudka waxaan rabay waxyaalo badan inaan Ilaahay weydiisto waxaan aad ugu iimaan qabay habeenkaas wax kasta oon weydiisto in Ilaahay iga aqbali oo jawaabna iga siin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar waxaan ku tukaday aayadihii aan kor ka xafidsanaa Assalaamu calaykum waraxmatullah Assalaamu calaykum waraxmatullah runtii waan qalbi jabsanaa waxaana u cabtay Ilaahay yaa Allah waxaan qalbigay ka go'an inaan wax kasta oo kaleeto ka horeysiyo adiga inaan ku raali geliyo itus jidka oo aan ku raaci doonaa meel kasta oo aad ii hogaamiso laakiin haddii aad jidka itusi weyda caawo ha igu eedaynin wixii dhaca hana igu eedaynin inaan u noolaado sidaan anigu doorto laakiin haddii aad i tusto kanaad tahay iyo waxaad
aniga iga rabto markaas waan ku raacayaa halkii aad ii hoggaamisaba. isla markaa nuur baa horteyda ka soo baxay wuxuuna yeeshay muuqaalka nin khamiis cad qaba. si bayaan ah wejigiisa uma aanan arki karin, laakiin xasilaan iyo qalbi qaboojin ayaa weheliyey. sidaan ku gartay ma ogi, balse durbadiiba waxaan xaqiiqsaday inuu ciise yahay. wuxuuna yidhi, isoo raac. diini isoo raac. waan qalqalsanaa waxaana ku fikiray, sayidow waxaan ahay muslim, siday ku dhici kartaa inaan ku raaco? waxaa tahay midka ay dadku ku sheegaan ilaaha masiixiyiinta, ilaaha gaalada, kuwa aan alle aqoonin. wuxuu sugay inaan u tago isaga. waxaa dhabanadayda ka dareeraysay ilin, kadibna waxaan idhi, eebow, haddii kanu yahay jidka runta, waan rabaa inaan ku raaco. isla markaas waxaan dareemay nabad aanan weligay dareemin. waxaan arkay isagoo dhoola caddayn, dabadeedna tartiib ayuu u tegey. abbaayo, waxaan filayaa inaanan kugu gafin. wax kastoo dhacaba waxaa xaqiiqo ah inuu aad kuu saameeyey. marnaba sidii hore ma ahaan doono. maalintaa laga bilaabo marnaba midii hore ma ahayn. waan fahmay. kadibna maxaa dhacay? waxaan raadiyey qof masiixi ah. midna ma joogin tuuladeyda, laakiin waxaan aqaanay reer masiixi ah oo degganaa tuulo noo dhow. waxaan bilaabay inaan u tago. markii hore way iga cabsadeen, waayo waxaan weydiistay kitaabka quduuska. laakiin markii dambe way i siiyeen, waxaana bilaabay inaan akhristo. wax kasta waan ka qariyay hooyaday, hase yeeshee muddo yar kadib way ogaatay. hooyooyinka mar kasto wax way ogaadaan. intaa kadib maxaa dhacay? haa, way barooratay, wayna i bariday inaan ka soo noqdo. waxay u qaadatay inay ku guuldareysatay barbaarinteedii hooyanimo, inaan ka caraysanahay guurkeeda, oo ma garanaysaaye aan ka aargudanayo. reerka intiisa kale ka waran. waad habaaran tahay. mar dambe reerkan kama tirsanid. cariif, iska daa hadal xumada. waxay u baahan tahay wakhti kaga soo fikirto. waqti badan oo ay kaga fikirta way haysatay. xaalku hadda wuu fogaaday. fogaa. ballan baan iiba u qaaday. hadduu jidkay tusana isaga raacayo. ujeedadeeda maaha inaan qof wax u dhimo, laakiin anigu go'aan waan gaaray. diini, hooyaday aniguna go'aan waan qaadanay. haddaan nahay muslimiin reer jaafa ah, xil aad u weyn ayaa naga saaran barbaarinta carruurtanada. carruurta waxaa waajib ku ah inay xushmeeyaan u adeecaan waalidkood. haddii arrintan diinta aad ku adkaysato sida aad adigu u rabto, marka waa inaad adigu mas-uul ka noqoto noloshaada. taas micnaheeda waad garatay. waa inaad raadsato lacag aad isaga bixiso wax kasta. dugsi, cunto, meel aad ku noolaato, wax kasta. diini, adeerka wuxuu ula jeedaa in mar dambe
aadan xaq u lahayn in aad waalidkaa wax weydiisato. haddaba waxaaga qaado oo tag. dhaqso. ma garanayo kartidu meeshay iiga timid, laakiin gurigii waan ka tegay oon u kacay magaalo kale oo la yidhaahdo Soolo. waxaana ahaa 16 jir. waxaan kiraystay qol oo waxaan bilaabay iskuul si aan u barto adeega bulshada. waxaan sanadkii koowaad ku soo dhigtay Simarang. maamulka iskuulka Soolo way ogolaadeen inaan bedel ahay iyagoo wax su'aal ah i weydiinin. waxaan helay shaqo saacado yar iskuulka kadib aan ka shaqeeyo oo i anfacday. waxaan istusay hadduu xaalka igu xumaado inaan kaalmo u doonan karo ayeeday. waxaana Soolo joogay 3 sannadood. reerka marmar baan booqasho ugu imoon jiray. markaan iskuulka ka qalin jabiyey waxaan shaqo ka helay Simarang. markaan soo guuray aan ku soo noqday bilowgii way igu yara adkaatay, laakiin durba caadi bay wax walba noqdeen. waa hagaage, waad nafistay. waxaan filayaa inaad hadda iska ilowday. dadaal bay sameeyeen hadday ku cafiyeen. dhab ahaantii dadaalka ugu badan qofka sameeyey aniga buu ahaa. waxaan mooday cafisku inuu waajib ku yahay masiixiyiintu. haa, taasu waa run, laakiin meeshii aan joogay aad bay u kala fogaayeen. waxaa ku jiray halkan iyo halkanu. soo gal fadhiiso. maya dhib ma laha. haye malaha daalka waxaa iga weyn walbahaarka. markaan halkan u soo guuray waxaan islahaa bambang wuu isbedeli doonaa. haddaa markaad aragtaba wuxuu fadhiyey qolkiisa isagu maskaxdiisu meel kale ku maqan tahay, ama hadi kale jidkuu wareegayaa. sidaas ma wanaagsano, waa inuu shaqo raadsado. haa, waan fahmayaa, laakiin wuxuu qaban karaa. wuxuu dhigtay ilaa fasalka 9aad oo kaliya. xirfadna ma laha, waxba kama shaqayn karo. waan hubaa wuxuun buu heli doonaa. aan ku sii cuntaa guriga la aado. salaamu calaykum. salaamu calaykum. wacalaykum asalaam. waxaan ahay diini. diini ah? haa, waxaan ahay diini. hooyadaa ma joogtaa? haa, way joogtaa. hooyo, waa diini. diini? habaryar. fadlan fadhiiso. ma rabtaa wax aad cabto diini? fadlan ha isdhibin. dhowr maalmood ka hor waxaan maqlay waxaad ku wada hadlayseen adiga iyo hooyo. anigu uma adkaysan karo. waan ka xumahay. waxaan kuula dhaqmay si xun, iga raali ahaaw.
iga raali ahow. dhib ma laha diini. Ceebaysnahay. Fadlan ka raali ahaada. waxyaalihii qaldanaa labadiina idinku sameeyey waan ka xumahay ee i cafiya. fadlan i cafiya. dhib ma laha diini, waan ku cafiye. Bang wuxuu ila yimid Jakarta. Markaan degnay waxaan siiyey lacag si uu ganacsi yar oo kabaha suuqa ooga bilaabo. 3 bilood kadibna wuxuu helay faa'iido oo lacag dambe igama uusan baahanin. xaguu hadda joogaa? Wuxuu joogaa Jakarta, wuu fiican yahay. markasta farxadaada guusha waa loo ooyaa. laakiin sidaas kuma aysan dhammaanin. maxaa dhacay dabadeed? ma wax ka sii fiican baa? haa, ka sii fiican. weli waxaa jira qof kale oo aan rabay inaan Maadeerka? saacdo. midkii ku dharbaaxay gacan qaadka kuumuusan degdegin haddii aan agtaada joogo. maya, ma aha. isaga mar horaan saamaxaye ee waa aabbahay. ma aabbaha wuxuuba dhintay adigoo gabar yar ah. haa, taasu waa run. wuxuuna igaga tegay fikir iyo caro badan. waxaasoo dhan waxay sugayeen inaan anu dhammaantoodba wada xalliyo. haddana waad cafiday. goormaad cafiday? hadeerba. ma aragtaa qabuuraha jidka ka shisheeya? haa, waan arkaa. halkaasuu aabbahay ku aasan yahay. ilaa uu tareenkan halkan soo istaagay wax yar horteed. aabbahay inaan cafiyo waa igu adkayd. laakiin eebe maadaama uu yahay eebbaha jacaylka, igama uusan yeelin sidii aan rabay. wuxuu yidhi haddii aan rabno ina laga cafiyo dembiyadeenna waa inaan cafinno kuwii dembiga naga galay. intaan kuu sheekaynayay waxaan soo xasuustay sidaan aabbahay u jeclaa iyo siduu isna ii jeclaa. waxaan soo wada marnay wakhti fiican. waa inaan taasna xasuusnaado. waxay u eg tahay inuu eebbe tareenka u joojiyey adiga aawada. qudhaydu taasna waan ka fikiray. waxaad u hadlaysaa sidii adigoo eebbe si gaar ah u yaqaan, sidii asigoo ah saaxiibkaaga fiican. wuxuu i faray inaan isaga raaco. sida badan ma ogi halka uu ii wado. waan ogahay inuu aamin yahay oo i gaadhsiinayo meeshii aan rabo. mar kasta, wax kasta oon u baahanahay isagaa isiini doono. isagu mar walba wuu ila jiraa.
wuu dhaqaaqay tariinkii wuu dhaqaaqay haa wuu dhaqaaqay qaboojiyahana ma uusan damin maya ma aysan damin waxaa halkan noogu dhammaaday sheekadii armayse hadda uun bilaabanaysaa midaanu farxad ma ku dhammaato abaayo waad ii sheegi doontaa sida ay ku dhammaato dadka aan u hanweynayn markay ina dayacaan waan qalbi jabnaa kalsoonidii aan ku qabnayna way luntaa waayo waxaan iyaga u haynay qadarin kaalintii aan ka falaynayna way ka soo bixi waayeen taas waxaa ka daran aad baan u cadhoonnaa hadba inta ay la eg tahay muhiimadda uu qofkaasu inoo leeyahay intaas oo kale ayuu la ekaanayaa qalbijabka ina gaadhayaana diini iyadoo yar waxay isku qancisay inay xaq u leedahay cadhada iyo cuqdadda ay u qaaday waalidkeed eedadeed sundaari iyo walaalkeed bambaang iyo xataa eebbe markaa kadib waxaa ku dhacay isbeddel baaxad leh iyadoo doonaysa sida eebbe la rabo nolosheeda waxaa u yimid oo ay aragtay muuqaalka Rabbi Ciise waxayna go'aansatay inay raacdo isaga meel kasta oo uu hogaamiyo si aynaan inagu bani aadan ahaan fahmi karin qolkeedii jiifka waxa uga dhex muuqday Rabbi Ciise oo intuu gacmaha u fidiyey ku yidhi erayadan isoo raaca in la raaco Ciise waa tallaabada ugu weyn ee bilowga laakiin sida ay gabadha diini ee runta ah inoo sheegtay nolosheenna adduunku waa safar marmaroor iyo laablaab badan oo hakadyo aynaan ku talagelin oo wax badan aynu jidka ku baranayno sida diini marka aynu aaminno Ciise waxaynu u raacaynaa meel kasta oo inoo hogaamiyo oo waxaynu samayn wax kasta oo ina faro waxaa diini hor yaalay arrimo badan markay masiixnimadeedu si adkaatay waxay xaqiiqsatay arrin muhiimad weyn oo gaar ah leh inay jirto waa arrinta ku saabsan saamaxaadda arrintaas ma ahayn mid sahlan laakiin jacayl aawadii diini arrinkaas wuu u fududaaday jacaylkuna ma ahan mid kasta laakiin waa midka ka yimaada xagga eebbe jacaylka aan shuruudda lahayn rasuul bawlos wuxuu jacaylkaasi kaga hadlay korintoska 1 cutubka 13 wuxuu leeyahay jacaylkanu waa samir iyo naxariis si fudud uma cadhoodo oo cuqdad ma laha wax kasta wuu rumaystaa wax kasta wuu rajeeyaa wax kasta wuu dulqaataa waa jacayl aan guuldarraysan midkan ayuu ahaa jacaylka ay diini raadinaysay xataa markay qallafsanayd ee lunsanayd si ay u adkaysato naca reerkeeda waxay u baahnayd jacaylkan si ay u cafido kuwii iyada dhibaateeyey gaar ahaan aabbaheed waa jacaylkaas midka uu ku hayo aabbaha jannadu wuu ku jecel yahay sida aad tahay ayuu kugu jecel yahay diini markay eebbe baryaysay inuu jidka tuso ma aysan filayn in mugdiga uga dhex muuqan doono Ciise oo u muujin doono ammaantiisa isagoo ku asqaynaya jacaylkiisa iyo naxariistiisa kaasuna ahaa wixii dhacayo way dhici kartaa inuu Ciise riyo kugu yimaado ama isku kaamuujiyo ama inuusan kugu iman muhiimaddu taas ma ahan balse nuxurku waa eebbe wuu ku jecel yahay wuxuuna rabaa inaad ilmihiisa ku noqoto rumaysadka Ciise Masiix wuxuu rabaa inaad ka mid noqoto qoyskiisa si marka ay dhammaato noloshaadan adduunyadu aad isaga weligaa ula joogto jannada sida ay diini yeeshay oo kale diyaar ma u tahay inaad qalbigaaga u furto
haddaad diyaar u tahay inaad aqbasho in ciise masiix yahay badbaadiyahaaga erayadan ila dheh waxaad tidhaahdaa eebbow waan rumeeyey ciise waxaan aqbalay in ciise yahay rabbigayga iyo badbaadiyahayga eebbow iga cafi dembiyadayda oo iga dhig ilmahaaga waxaan kugu mahadinayaa magaca ciise aamiin hadda waxaad heshay nolosha weligeed ah ee xagga eebbe hadda waxaad tahay mid ka mid ah carruurtiisa eebba ammaan leh